nabadgelyo. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Sharaf iyo karaamo iyo ciise Rabbi dushiina ha yeelo. Anigu waxaan ahay sida Cali Macalin Ibraahim. Kanina waa barnaamijkeenii Saabuur. Si degdeg ah dadku kuma rumaysan doonaan. Iyagu kuma rumaysan doonaan xaqiiqdii. Intaad hawsha qabanayso, kuma rumaysan doonaan intaad dhibaatoonayso, kuma rumaysan doonaan intaad daaha gadaashiisa ku oynayso, kuma rumaysan doonaan intaad waxqabadka keligaa aad wado, kuma rumaysan doonaan intaadan soo bixin oo adiga aadan istusin iyaga. Laakiin waxa ay ku rumaysan doonaan goortay arkaan waxqabadkaaga aad qaban jirtay, iyaguna ay ahaayeen kuwa ku yasaya wax aad qabanaysidna la yaaban. Markaas bay ku oran doonaan, waa sideed ku samaysay shaygaas? Ma oga dhibaatadaad u soo martay. Markii hore waa ay ku yasi jireen oo waa ay ku liidi jireen oo ma aysan ogeyn waxaan in aad beri wax ka filanayso. Maanta way ku yasayaan, berina iyaga ayaa kuu markhaati kacaya oo dhihi doonaa, kaasi waa kii aan isla joogi jirnay markii hore. Hami buu lahaa, riyadiisu aad bay u saraysay. Ifahan, maanta way ku liidayaan oo way ku xasdi doonaan oo ay ku xaqiri doonaan xaqiiqdii. Laakiin beri iyaga ayaa kuu markhaati kacaya oo ku dhihi doona, kani waa kii naga hami sareeyey. Wallaahi waa uu dadaalay, ee sidee buu ku sameeyey intaani oo dhan? Markaas bay soo baraarugi doonaan intaad adigu soo dhafri jirtay oo dhan, intaad soo dhibaatoon jirtay, intaad adigu dadaalka shaygaasi aad waday, iyaguna way kula yaabanaayeen. Waxaa tahay ma aysan ogeyn, laakiin maanta waxaa tahay ayay ogaan doonaan. Qofkaa tahay ayay ku ogaan doonaan. Qiimaha aad leedahay ayay ogaan doonaan. Markaas bay ku weydiin doonaan shaqo iyo lacag ama waxaad ku wanaagsan tahayba inaad caawimaad ka siiso. Adigu waxaad ahayd qof daaha gadaashiisa in badan ku ooyi jiray, u dhibaatoon jiray shaygaasi uu ku wanaagsanaaday maanta. Laakiin haddaad adigu in badan dadaali weyso oo aad juhdi bixin weydo, adiga ayaa meeshaada isdhigay. Dadaalaa waa u gaaraa heerkiisa. Dadka adiga wax kaa sheega, haddii aad ku mashquusho, hubaal ma gaari doontid meeshaad rabtid iyo hamigaaga. Noqo qof hadafkiisa inuu ka dhabeeyo rabaa. Innagu hawshayna ayaynu qabsanaynaa. Beri iyagaana weydiin doona waxaynu samaynay, inaga waraysan doonaa. Balse innagu goor aan wax walba qabsanay ayay noqon doontaa xilligaasi. Goor aan duni bedelnay ayay noqon doontaa. Iyagu waxay joogaan meeshii shalay aynu ku ogeen. Innaguna waxaynu gaarnay meeshii ugu wanaagsanayd ee bini'aadan gaari karay. Iyagaana weydiin doona waxaan samaynay, iyagaana waraysan doona. Balse innagu waa goor aan wax walba qabsanay, goor aan duni bedelnay. Iyaguna meeshii shalay ayay joogi doonaan. Innaguna waxaynu noqon doonaa cabqariyaal. Iyagaa legends nagu tilmaami doona meesha ay maanta naga dhahayaan, kani wuu waalan yahay. Balse beri magacaasi way bedeli doonaan. Waxayna noogu bedeli doonaan legend, the greatest legend of Somalia, ama kii ugu wanaagsanaa ee hawshani ku takhasusa. Iyaga wax walba oo xun ayay maanta kuugu magacaabi doonaan dadaalkaaga markay arkaan. Sababtoo ah daruur cirkaasi jirtaa, qof bini'aadan oo maanta gaari karaahi ma jiro. Adiguna daruurtaas ayaa jirtaa. Maanta haddaad isliido oo aad warkooda qaadato, jas waxaad ka mid noqon doontaa kuwa aad u hooseeya. Laakiin goortaad garato waxaad ku wanaagsan tahay, meeshaad hiigsanayso, rajadaada meesha ay tahay, adiga ayaa noqon doona iftiinka baxaya, xaqa u yeelanaya inuu guulaysto. Xaq iyo xaqaa'iq baynu u leenahay inaynu guulaysano. Dunidan inta aan rabno aan ka qaadano, aakhirana halkii wanaagsanayd aynu tagno. Dadaal oo juhdi bixi. In Allaha macana. Baqdin iyo cabsi ma jirto. Innagaa xaq u leh inaynu guulaysano. Qadarku nin aan dadaalin buu celiyaa. Rabbi baynu kaalmaysanaynaa, waynu dadaali doonnaa. Xaq baan u leenahay mar kale inaynu guulaysano. Xaq baan u leenahay mar kale inaynu guulaysano. cabqariyaal laga dambeeyo inaynu noqono, hawshaan bilownana in looga dambeeyo. Inagu
waxaan nahay Soomaali, waxaynu ka nahay dhalinyaro hiigsi iyo hami leh, kuwa guulaysay ayaynu ka mid noqon doonaa Rabbi hadduu qadaro. Dadaalkeenana waynu ku meel mari doonaa. Riyadeennuna maaha riyadii hurdada aynu ku riyoon jirnay, ee waa riyo dhab aynu ka dhigi doono Rabbi hadduu qadaro. Innagaa guusha leh, gacanteena Allaha sarraysiiyo. Nabadgelyo oo nabaadiino.